imikana waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha garabka haweenka Sucaad Cabdi Faarax Abraar. mahadsanid rooda xiriiriyahayaga dhamaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta waxaan salaamayaa dadka sharafta badan taageerayaasha iyo xusbiga wadani ee maanta halkan waqtigoodii qaaliga ahaa u soo huray yimiday haween iyo ragba waad mahadsantihiin. arrintan maanta waa dee laba arrimood baan arrintan ugu nimidnay. midda ugu horeysa horta waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryaynaa ummadii dhalinyartii shabaabkii dalka usoo kacayay ee beritoole ahaa mustaqbalkii dalka ee mudaharaadadii labadii mudaharaad intii ku geeriyootay iyo intii ku dhaawacantayba kuwa ku geeriyooday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay janno firdawsi geeyo. waxa weeyaan nimankaasi waa mujaahidiintii dimuqraadiyadda kuwaas inamadii maalinta dhawaato la aasayay. ilaahay ha u naxariisto waalidiintoodii iyo ehelkoodii iyo inaga dhan oo bar ay ahaayeen ubaxeenina ilaahay weyna waaxidkii samiri iibaan ha inaga siiyo. inta ku dhaawacantayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inay ilaahay u boogadhayo. waxa weeyaan adduunyada waxa weeyaan dimuqraadiyad waxa lagu gaadhaa in wixii uu qofka bini'aadankii diidan yahay sheegan karo isagoon hubaysnayn. iyagoon hubaysnayn ummadda sheegtay ee hadashay waxa la isku hayaa Somaliland wax kale maaha waa dastuurkii aynu qoranay ee dhiganay ee ah in doorasho la qabto. madaxweynaha imika jooga doorasho ku yimiday meel dheer baa laga keenay Somaliland. waxa weeyaan tacab badan baa loo soo galay, dhiig badan baa ku daatay, dad baa u dhintay, dad baa u dhaawacmay oo maanta aan wax alla waxay ku haystaan jirin. raggii soo halgamay de labadan mujaahidka sheegtay ee maanta dawladda haysta Somaliland de rag baa jira iyaguna dhaawac la soo dhaawacmay oo magaalada Hargeysa iyo Burco iyo meel walba ku nool oo aan cid war u hayn oo dalkan u soo halgamay. waxa weeyaan qof waxaad u soo halgantay inaad haddana xabad la dhacdo caqli darray keenaysaa. dadkii adi shalay ku doortay ee meesha ku keenay ee madaxweyne ka dhigay ama wasiirka arrimaha gudaha ka dhigay cashuurtoodii aad maanta mishaarka ku qaadato inaad layso hooyooyinka inamadan la laayo hooyooyin iyo aabayaal baa u soo dadaalay oo bacadka u fadhiisanaya oo jaamacada ka saaray oo sida kuweena inaguba aan ubadkeena ugu sugayno mustaqbal ugu sugayay in aad maanta xabad la dhacdo. waxa weeyaan madaxweynaha ayay magaxumo ku tahay, wasiirka arrimaha dibadda ayay magaxumo ku tahay, waxay aqal xumo ku tahay xusbiga kulmiye oo aad moodidba imika inuu dalkiiba la wareegayba. يعني واحد مودابة دستور ديمقراطية دي بالله تاعيدنا كيال ميسو وحن هاتنا قيا دمان انتي مظاهراتك عن قوري سيدن وصوب حضي عدكو دا شيء ديمقراطية دو هالجميع آد بانو هاتنا قيا وحن كلون آد هاتنا قيا حسبي هذا معارضك maxay ahayd xusbiga wadani iyo xusbiga ucud iyo gudoomiyayaasha labada xusbi xirsi iyo Faysal Ali Waraabe madaxweynaha mustaqbalka musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan iyaga laftirkooda halis la geliyay haddana dalkooda u turayay caruurtoodii dhex socday ka doortay in ay xabad qaataan inay si nabadgelyo ku socdaan. kuwaasna waanu mahadnaqayaa. waxaan farayaa hal kelmad waxaan leeyahay shicibka Somaliland. hal kelmadna waxaan leeyahay ciidamada sharafta badan ee dalka ee aan ku hurudno nabadgelyadooda. ciidanku waxa weeyaan xusbi maaha, ciidanku maaha madaxweyne maaha. madaxweyne kastoo yimaada ciidanku waa waxa weeyaan kuwa maanta Somaliland lagu hurdo. nabadgelyadana inagu halkan intaan ka tagno dalkeenii si nabadgelyo u tagayno ciidamada ayaa hawsha aqle. marka iyago sidaas oo sharaf naga mudan ciidanku oo inamadayadii ah oo rayaashayadii ah oo ixtiraamayno maaha inay ubadka ay iyagu dhaleen ama ay ubaxa dalka beritoole madaxweyne ka noqon doona inay xabadda ku furaan ciidamadaas maaha. shacabkana waxaan leeyahay waa inaynu diidno. waxa weeye wax kasta oo loo dadaalo waxba iskama yimaadaan. Somaliland iskama iman
dad baa halkaa soo gaarsiiyey musabix madaxweyne muu noqdeen haddaan dalka loo soo halgamino ilaa burco ilaa boorame ilaa iyo halkaa maanta ay marayso intaasoo madaxweyno ayna isku soo dhiidhiibin marka laga yeeli maayo marka muuse iyo xusbiga kulmiye midna laga yeeli maayo wixii loo soo dadaalay baan maanta baabiinaynaa oo halkaa kursigaasaan ku dhigaynaa cidima yeeliso taas waxaan lahay shicibka waxa weeyaan inta dhimatay waa in ilaahay u qoray waqtigoodan bay dhiman lahayn hadday sariirta hurdaan way dhiman lahaayeen shantaa qof ee dhimatay way dhiman lahaayeen laakiin waa inaynu diidno waa inaan ilaa iyo saylac ilaa iyo halkaaynu xadka caynamo ugu shisheeya waa in shicibku uu soo baxo uu diido maya yidhaa oo la yidhaahdo sidii maalinta dhaweyto doorasho yaanu rabnaa waxa weeyaan muuse madaxweynahana waxaan leenahay anigu xildhibaan baan ahay gobolka magaalada ladhaa fesby baan xildhibaan golaha deegaanka ka ahay waan u gudbiyey xusbigayga nationalka iyo localkaba dhibaatadii ka dhacday somalilan somalilan dadaalkeeda waxaan ku jirnaa oon maalin walba ka shaqaynaa in layna aqoonsado adduunyaduna maanta waa isku xidhanto telefoonkaa yar iyo kombyuutarkaa yar baa lagu wada jiraa marka waxa weeyaan ma duminayna dalkayaga waan jecel lahay inaan aqoonsadaan rabnaa in aan adduunyada kale sida wadanada adduunyada kale ay adduunka uga qayb galaan rabnay laakiin waxaan gudbinaynaa in uu xusbigan maanta jooga yahay dictator ubadkayagii laayay maxay ahayd qaar dhaawacay madaxdayadii xusbigana uu xidhay oo jeelasha ka buuxaan taana cidna kama baqayno anu sanad walba waan tegaa wadanka imikadan October baan tegaya cidna uga baqi maayo walaa muuse aan uga baqaya walaa maxamed kaahin baan uga baqaya waayo waxaan xaq baan u leeyahay waa dalkaygii wey dalkaygana wanaagiisa inaan adduunyada kale u gudbiyana waa mas-uuliyad baa iga saaran waxa dhibaatada dimuqraadiyiinta inaan gudbino xaq baan u leenahay waanu gudbinaynaa dowladda Norway-kana waanu u gudbinay waan sii wadaynaa marka waxa weeyaan doorashadu waa inay dhacdo golaha guurtida wixii la idin doortay waxa weeyaan ma aha inaad gudoomiyaha golaha guurtiga iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee shicibku soo doortay labadaba waxa la rabaa in ay codka shicibka ku hadlaan lama rabo inay codka xukuumadda dimuqraadiyiinta maxay ahayd caruurta laynaysa ma aha inay daawadaan weligan bay nagalka waxayna soo gaarsiisay markay sidaas wax u dhacaan in lagu noqdo guurtida iyo maxay ahayd sheekhyadeenna iyo odayaasheena sharafta badan intaas Soomaaliland waxay heerka ku soo gaadhay waxa weeyaan markay wax dhacaanba waxa ina kala qabta ama inoo soo gurmada odayaasheena sharafta badan iyo guurtidii iyo golahii baarlamaanka ee la doortay golaha baarlamaanka la doortay ma kulmiya soo doortay waxa weey waa inuu gudoomiyaha waliba xusbigeena kamid ah ee golaha baarlamaanka codka shacabka inuu ku hadlo wey mas-uuliyadiisa weeyaan waa mas-uuliyadaada weeyaan inaad codka shacabka ku hadasho lagaa yeeli maayo waanu la hadalay oo waxaan qabano adiga iyo gudoomiyaha Saleemaan ba laydinka yeeli maayo codka shacabka inaad ku hadashaan weeyi shacabku inay kacaan weeyi meel kasta oo Somaliland shacabku waa inay soo baxaan oo ay sida carabtaba berigii dhaweyto inan yaroo dab isku gubay Tunis madaxweynaha hortiisa isku gubay ba dabkii dhanaaye carabtii xoog weynid oo dhan ka qaaday meesha waxa weeyaan raallihada malaha hadalku way nagu batay waan iska yar xaraaroonay cadaan haysad mar baan nahay marka waxa weeyaan waxaan imikana leenahay dalkeena waxaan rabnaa in doorasho la qabto in dimuqraadiyaddu hirgasho in loo sinaado kursiga madaxweynaha iyo ka wasiirada iyo ka hooseeya dhulka xeera in loo sinaado halkan tacsi tiraanya looga dirayaa abwaankeenii qaaliga ahaa ee halka uu suugaanta dhigay cid digtay weli ayna jirin ilaahay janna firdawsa ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaali afka Soomaaliga ku hadlana ilaahay samir iyo iibaan ka siiyay isagana janna firdawsa iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland baan ka tacsiyadeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh yaad bay u mahadsan tahay in Sucaad gudoomiyaha Sucaad